bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaaynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid a taliya xijaar oo ka badbaaday iskuday dil sanatarada laga soo doorta galmudug iyo hirshabelle oo ku kala tegay kulan ka dhacay jasiira weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ku yaala duleedka Kismaayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeena ugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno taliya xijaar ayaa ka badbaaday isku day dil sida uu ogaaday runsheeg TV waxaa xalay hoteelka la weeraray ka socday shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta beesha dhulbahantay iyo mas-uuliyiin ku matasha dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu yaraan 10 xildhibaan oo beesha dhulbahantay ka soo jeeda taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin uu ku jiro hogaamiyihii hore ee maamulka Khaatume State Maxamed Yuusuf Jaamac ay ka soo wada jeedaan beesha dhulbahantay ayaa halkaasi shir ku lahaa sida uu ogaaday Runsheeg TV una xaqiijiyay xubin kamid ah mas-uuliyiintaasi waxaa loo badinayaa in inta badan dadka ku shirsanaa hoteelkaasi ay ka soo jeedeen beesha dhulbahante adeega gurmadka degdega ah ee Amiin Ambulance ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada 6 qof iyo dhaawaca tiro kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa kamid ah taliyaha ciidamada birmadka ee booliiska Soomaaliyeed General Siyaad waxaana khasaaruhu intaasi uu kaga sii badan yahay marka loo fiirsho dhaawaca kale ee dadka shacabka ah soo gaaray sidoo kale taliska booliiska ayaa soo bandhigay xogta qaraxa liida iyo khasaaraha ka dhashay afayeenka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan oo faahfaahin ka bixiyay qaraxa xalay ka dhacay xeebta liido ayaa sheegay in uu fuliyay qof nafti halliga oo soo xirtay jaakada qaraxa taasoo shaki badan dhalisay sidoo kale afayeenka ayaa xaqiijiyay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 8 kale oo ka dhashay qaraxaasi isagoo oo meesha ka saaray inuu jiray weerar toos ah oo ka dambeeyay qaraxaasi afayeenka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay qofka isqarxiyay in ay u suurtageli weysay in uu gudaha u galo hoteelka isla markaana uu isku qarxiyo amaba u banaanka horeba hoteelka banaankiisa uu ku qarxo hoteelka la weeraray oo qaraxaasi uu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Baskator kuna yaala inta u dhaxaysa Hotel Beach View iyo Ocean View ee xeebta liido qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa 3 qof waxaana ku dhaawacmay ilaa 3 kale oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka waxaana bulshada u xaqiijinaynaa in goobtu ay hadda tahay mid ammaan ah oo ammaankeedu sugan yahay ayuu yiri Cabdifataax Aadan Xasan waxa uu sheegay in la soo badbaadiyay dhammaan mas'uuliyiintii ku sugnaa hoteelka gudihiisa isagoo aad u amaanay ciidamada ammaanka sida uu sheegay fashiliyay qaraxaasi oo qofkii isku soo xiray uu doonayay in uu gaaro goobta mas'uuliyiin badan ay ku sugnaayeen taasoo u suurageli weyday ugu yaraan 10 xildhibaan oo beesha dhulbahanta ka soo jeeda taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin uu ku jiro hogaamiyihii hore ee maamulka Khaatume State Maxamed Yuusuf Jaamac ayaa ka soo wada jeeda beesha dhulbahante ayaa shir waxa uu uga socday hoteelka gudihiisa sidoo kale tuhuma badan ayaa tilmaamaya in weerarkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale kii ka dhacay magaalada Muqdisho xalay oo ka dhaxeeyay xiriir toos ah wasiir Cabdisiciid maalmo ka hor ayuu Muqdisho kula kulmay labada gudoomiye ee ku meel gaarka ah ee baarlamaanka 11aad kadibna waxaa looga daba tagay Gaalkacyo oo la damcay lagu qaarajiyo sidoo kale taliya xijaar ayaa la shiray xildhibaanada Sool Sanaag Yacayn ayaa la weeraray waxaana la doonayay in isna la qaarajiyo balse Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka badbaadiyay isku dalgaasi lagu doonayay in adduunka lagu dhaafiyo xiriir ay leeyihiin labadan weerar ayaa loo arkaa in xijaar iyo wasiir Cabdisiciid ay madaxweyne Farmaajo campaign gareynayaan sidaas darteedna loo beegsaday
Siciid Cabdulaahi Deni hogaamiyaha Puntland ayaa si toos ah Cabdisiciid ugu eedeeyay inuu madaxweyne Farmaajo u kaambeyn gareynayo halka xildhibaanada SSC laga baqayo in Generaal Xijaar uu u weeciyo dhanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya taasoo culays u arko hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo hadda culays badan ku wajahaya Axmed Karaash sidoo kalena siyaasiyiinta reer Puntland ee magaca weyn ku leh ay dagaal siyaasadeed oo weyn ay hadda ku hayaan. Hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in xildhibaanadii uu soo saartay ay ka diideen xitaa inay la kulmaan. Sidoo kale warar aan ka helayno dhinacyada siyaasadda ayaa tilmaamaya in uu Deni isugu yeeray xildhibaanadiisii balse kala bar qayb ka mid ah ay go'aan ka gaareen oo aysan shirarka uu Deni ugu yeeray aysan ka soo qaybgelin. Deni ayaa bilaabay in uu beegsado dadka ka aragtida duwan isagoo aan u aabayeelayn siyaasi iyo sidoo kale nabadoon, isim dhaqan iyo sidoo kale shacab. Waxa uu toos u bilaabay in uu u weeraro qof kasta oo reer Puntland ka soo jeeda kaasoo aragtidiisa siyaasadeed ee foosha xun ka soo horjeensada. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah senatarada laga soo doortay Galmudug iyo Hirshabelle ayaa ku kala tegay kulan ka dhacay Hotel Jazeera. Waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen senatarada ka tirsan aqalka sare laga soo doortay deegaanada Hirshabelle iyo Galmudug sida uu ogaaday Runsheeg. kulankaasi ayaa ujeedadiisu ahayd in senatarada Galmudug ay ka codsadaan kuwa Hirshabelle in senatar Cabdixakiin Macalin Axmed looga tanaasulo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo kula tartamaya musharax ka soo jeeda Hirshabelle. kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa isku haya senatar Cali Shacbaan Ibrahim oo laga soo doortay Hirshabelle iyo senatar Cabdixakiin Macalin Axmed oo asagana laga soo doortay Galmudug. madaxweynayaasha labada maamul goboleed ayaa la soo warinayaa in ay kala taageersan yihiin labada musharax iyada oo mid walba uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu kursigan ku heli lahaa qofka isaga deegaankiisa ka soo jeeda. xogta aan helnay waxay tilmaamaysaa in senataradii ka socday Hirshabelle ay diidaan inay ka tanaasulaan kursiga isla markaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay tartamaan oo ku guuleystaan kursigaasi. dooda u weyn ay qabaan xubnaha Hirshabelle ayaa ah in kursigan oo ay wadaagaan beelo ka soo jeeda labada maamul aysan hadda sax ahayn in mar kale uu dhankeeda jirsado Galmudug maadaama 5 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay senatarka laga soo doortay deegaanada Galmudug. gogasha ka dhacday Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho oo ay dhigeen xubnaha Galmudug ayaa ku soo dhamaatay isfaham waxaana muuqata in loo dareeray tartan adag taasoo xiiso u yeeli doonto doorashada 26 bishan ka dhici doonta magaalada Muqdisho. loolanka labada maamul ayaa waxaa sidoo kale xiiso u yeeli doona tartanka doorashada iyadoo la kala ogaan doono saaxiibada ay leeyihiin labada dhinac maamul goboleedyada iyo saameyntooda maadaama labada madaxweyne ay qayb ka yihiin ololaha doorashada kursigan. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.